بلبلو let's go يجي أنا ما هو وكسل لحنا أنا كان مدمع قسم يا زلمة وسيلة شغلا بدونيها عليها يضمان وباهنتها وسلامتين marka hore waxaan ku bilaabaynaa maanta waxaa dhacay in nin argagixisada ka mid ah oo inta jaaka soo hubeeyey oo ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo asagina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuuray waa la qabtay marka ilaahay sarkaalkaas caafimaad siiyo waxay ka mid tahay khataraha cusub oo lagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuuro dadka uu ka cararo waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub taas markaan ka soo gudbo sida aad ka warqabtaan dawladdu markii ay lahayd isu soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimayn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba qiimayntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fadhiistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimayntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo kordhay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus oo soo kordhinayay ay aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan tahay taasi waxay nagu sii adkeynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato midda amni ee maanta ka hadlayna ee qofka dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiiri gelinaya inaan aanan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas'uuliyad baa nasaaran mas'uuliyadda nasaaranne waxaan u walwalaynaa sida waalidku u walwalo carruurtiisa u walwalo ninka mas'uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku u walwalo carruurtiisa oo khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badan oo dadaal u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay intaas oo kala bixiso waxaa dhici karta dadka kale mas'uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaar oo u muuqda inay ayagu raadsadaan hadhowna mas'uuliyadda annaga nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan banaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqdo mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha naqdo mid looga soo horjeedo banaanbaxna sideeda dawladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan wax weyn ma aha in dawladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo banaanbax oo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayadaa isxilqaanta maahay dawladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas'uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dawladdii waxaa jooga safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla mudaaxaraad hub wata oo hub dad hubaysan wataan na sideedaba lama ogolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimayn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyoo yaraata iyo qiimayn kale unbay ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisii qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadal inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaag doona wax kasta la iska afkarto baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisuu u taagan yahay saacadan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas'uuliyiin waxay ku jireen in lees afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socdaa cid albaabkaas waa furan yahay sida bare ministerku uu baaqa u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana waa hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa
ما أها wax go'aanka dawladda wax looga bedelay ma aha go'aanka dawladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimeyn aan wax lagu soo dhiso marka aad iyo aad u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wado maanta warka hadda aanu anjeedinayo mudaaharaad uma baahnin mudaaharaad warbaahintiina ana ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan uma baahnin soo baxayna sameeyo waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dawladda iyo dadka kale dawladda ku jirna oo aan dawladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa 40 kaamira ay hortaagan 40 kaamira waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan wax baahiyo loo qabo maanta in dad isu keeno oo aan ilaa aniga dad isu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya kaamirooyinkan bis aan u baahana ayagaasaa warkii gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dawladdan oo ka bilaabaya mas'uuliyiinta dawladdan ka bilaabaya kuwa kale dawladda ka tirsan ka bilaabaya isu soo bax lama ogola qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax caburin leeyahay ma jiraan wasaaradda amniga oo aanu mas'uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiyo warbaahintan sharafta badan meel walba iga gaarsiinaya aad iyo aad u mahadsantihiin wasiir waa VOA Cabdiqaadir okay laba su'aal oo weydiiyay rabaa oo ku saabsan arinta shirka jaraa'id midda koobaad amniga qofka isqarxiyo maanta jaakada watee fakaday sidee waa shaaka ku cusub dadka Soomaalida ma amniga marka laga hadlayo qof jaakad wato jaakad tuura kadibna uu baxsado say ku dhacday xogta badalka la wadaag midda labaad wasiir muqaarad ku banaan baxo ilaamiyaan hore u ilaamiyaan dhibaato ka dhalatay ma jirto miya wada kale oo looga bixi karo xaaladan adag ee dadka Soomaalidu ay aad uga walaacsan yihiin aad haysaan ما سنت هرت بركة كوبا دينك رجاكة ده إنه تورة بقى كده ده أساس كله أساق تورة لكن سيدا إنه شيئين وقليل هذا التاريخ هاي وعلى سواق قبته وأنا حرير ناس ورت وقتها دولة المسؤولية ده وحواي إنك هرتكته وواحد بعته كيرية حديث أي دعوة إن بعته دي قفكي على هذا حد يخد قفك ورباحه رباحه البوليس سيموجي إنه كل رباحه يقفك سيموجي لكن ما في كل رباحه رباحه إنه كاق مركا شغله دوا قفصدين وأنا كو أمانيه وأنا مهتيه booliska iyo nabadgudda iyo military-guna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno oo shaqada ugu sharaf badan ugu wanaagsan haya oo dhamaanteen naga karaam badan naga sharaf badan waa inaan ku mahadinaa waa inaan ku ducaynaa waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabadeena habeen iyo maalin idinka warbaahintana waxaa la idinka rabaa wadanka dhismihiisa tiirad ka tiin muhiim waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeena dhisaya oo dib u celinayn oo bulshadu ku wanaagsan inaad ka shaqaysaan haddii kale warbaahintu waxay isu bedelaysaa haddaysan taa ka shaqayn wax ka dhinac kale aadaysaa waana ku kalsoonnaa 100% warbaahintana saaxiib aan la nahay dawladduna waa la saaxiib waadna ogtihiin bare minister Roble inuu shan wasiir oo ka tirsan warbaahinta uu sameeyay taas waa qodobka labaad banaanbixi dawladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go'aankaas wax iska bedel ma jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dawladdu ay qiimeyn kala ku noqoto si kastaba ha ahaato ama wadahadal ku timaado ama caafimaadka la qiimeeyo iyo amniga noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore laakiin waxa ka dhashay doctor Soomaa waa Faaduma Cabdiqaadir Galsan TV soo dadku waxaad ka wacyigelinaysaan COVID-19 banaanbixii aad joojiseen toddobaadkan ka soo gudubna waxay idinkoo dadka badbaadinaya haddana mucaaradku way horkacayaan dadkan oo banaanbixu way ku dhawaaqeen oo sheegeen inay ka dhaweynayaan shaqo qabsan doona sidee dadkaas badqabkooda ku badbaadinaysaan mise markaa xabada ugu jawaabaysaa badqabka horta kow adinka laftiina u sheega bulshada u sheega war bulshooy warbaahintii annagaa codkiina qaadayna annagaa fariintiina qaadayna dhibaataha abuurina caafimaadkiina khatar ha gelina amniga khatar ha gelinina walaalayaalow guryihiina jooga fariin wixii annaga noo dhiibta idinkuma dhaha badqabka dadkaas sideed ugu jawaabaysaan xabada mamana wasi waad maasan tahay waxaad sheegtay ahaan la joojiyey in wax banaanbaxaysa dalka mucaaradkuna waxay sheegeen banaanbax inuu dhici karo ujeeda gacmo gaaris waay waxaa rabtaa marka inaa xabad ku ridaan masaxal kale oo ismacad horta marka hore warka aan ka hadalno annagu banaanbax kama hadlo waxaan ka hadlay isu imaad oo dhan golaha wasiiradan ka bilaabna zoom aa lagu gelaya idinka hadda isu imaadkiina qaabkan laftiisa waa la isku haystaa laakiin annagu dee wacyigelin baan wadnaa moogiyo ma xataa raali kama jiro wixii duruuftu keento ama markaa kooban waaba la garta laakiin annagu banaanbax marigaa mabaan ogeyn cid naga soo codsatay cidna la wadaagta maba jirinba waxaan ka hadalnay isu imaadan ka hadalnay ama ha noqdo mid xafiisyada ka dhexdiisa ka dhaca ama mid banaan ka dhaca soo baxaan iyagoo xiran face mask iyo qalabka lagu hortagay COVID-19 xataa talaabada dawladda qaaday
arrinta amniga koofka maxay ku qabanaa arrinta amniga ka furdubka maxay ku qabanaa waa maasanta سعادة الوزير هذا وين كان لدي وادي أركي هذا ولا هذا هو صعدا بريمر سلاف باغي إلى هذا نواس صعدا ولا هذا الباب كيسر محرر وأنا صعدا وأنا واحد هذا ما سيد خياري هذا ما سيد ست أول